geediga loo guuray galbeedka muxuu wanaag dhalay muxuuse xumo dhalay geedigaasi galbeedka la degay ee loo guuray runtii malaa dee warbixin buu uga dhow yahay muxaadaranimo laakiin waxaan isku dayayaa waxyaabo kooban inaan ka tilmaamo oo qofka caqliga lihi wax ku garan karo waa dad muslima oo Soomaaliya qeyrkeedba ah oo ka tegay dhulkii ay deganaayeen islaamku uu ku badnaa ama muslimiintu ku badnayd oo degay deegaan ama guri deegaan kale deegaanka ay degeen maaha deegaankii reer miyiga oo kale reer miyigu intuu guri ka guuraabo meel cidla oodan jiray meel aad oodanaysa maaha waa deegaan degan yahay oo nidaam leh bulsho dhisan leh qaab waxbarasho leh qaanuun leh system iclaama leh dad habaysan baa loo tegay qofka Soomaaliyeed ee meesha tegay wuxuu wataa in badan oo ka mid ah afarta shay ee wadanada loogu necab yahay waa muslim deegaanadaasi muslimka lagama jecla bale haddaad tareenka ama baska fuusho tidhaahdo la garta inaad muslim tahay waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan muslim lama jecla waa laba waa nin madowgana lagama jecla waa saddexe waa laaji waa qaxoonti waa infandareere laajigana lama jecla waa afare waa wax mahayste waa faqiir bulshadaasi category ay u dhisantay waxa weeyaan siday u kala hanti badan tahay u kala koraysaa idan waxa laaliya wax aan la soo dhaweynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa waxaad noqonaysaa dib baan ka sharxi doonaaye qofka la yidhaahdo waa muqtarib alghuraba waxaan aad ula yaabaa weedhu ku tilmaamay abwaanka Soomaaliyeed ee Hadraawi la yidhaahdo Hadraawi tegay meeshaasi mudduu yara joogay dabeetana wuu soo noqday ka warran baa la yidhi wuxuu yidhi intii aan meesha joogay waan iswaayay buu yidhi isagaa iswaayay wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayay yani waa ghurba rasmiya culamaa طب ayaa waxay yidhahdaan iqtiraabka waxaa la yidhaha fi lmucjam طبي iqtiraabka waxay yidhahdaan waa idiraab waa isbaranbarin caqliga ku dhacda oo ka dhigta qofku inuu gariib ku noqdo daatadiisa iyo mujtamaciisaba naftiisa iyo mujtamaciisaba inuu gariib ku noqdo culamaa ilfalsafana waxay yidhaahdaan waa qofkoo jawharkiisa waaya soo duuduub waad iswaayaysaa markaad halkaa tagto waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid halkan barigaad joogtay inaan Soomaaliyeed oo reer hebel aan ciidaba ka sarreynin oo bulshada inuu isagu ugu sarreeyo isu haysta oo caynkaasaad ahay waladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi waxay rumaysantihiin bulshada tan nawcun maa siba u xaqirtaan nin madow oo tima adag oo waxba haysan oo kaa hooseeyo Soomaaliga dadkana waxa bay moodaan inuu lacagta sido marka halkan waxa la idinka haystaa dad wax haysta inaad tihiin bulshooyinkana la joogtaan laakiin xaggoo waxaad ka tahay muslim madow xunti wax ma hayste intaasaad ku astaysan tahay taasi waxay keenaysaa waxyaabo tiro badan leh balaan marka hore taariikh kooban tilmaamo aqliyadka muslimka ay goormay galbeedka degeen waxay bilaabantay hijrada muslimiintu ay meeshaasi u hijroodaan intii ay Yurub dagaalada gashay kadib inta badan hijrada ugu badan ee waqtigaas ay tagtay dagaalkii koowaad dadka badbaa tagay se afwaajta ugu tirada badan leh kooxaha ugu tirada badan leh waa wixii dagaalkii labaad ka dambeeyay dagaalkii labaad Yurub way dumtay
oo iyada isdumisay wadannadii way baaba'een kadib markay nabadoodu dhacday waxay u baahdeen inay wadamadoodii dib u dhisaan dabeetana waxaa loo baahday alyadi alcaamila dadkii shaqaalaha ahaa ee wadanadan wax ka dhisi lahaa markaasaa waxay qaateen dad shaqaalo oo tiro badan leh dadkaa hore waxay u badnaayeen north africa muslimiinta degta waqooyiga africa morocco iyo algeria iyo tunisia iyo bacd masaari ka mid ah aduu waqooyiga africa muslimka dega iyobay u badnaayeen turki dowla alcuthmaaniya markii ay jabtay wixii ka dambeeyey turki dadkaa hore ee tegey meesha waxay u badnaayeen dad aan aqoon badan lahayn mid diineed iyo mid maadiya toona muruqmaal dad shaqaalo ah oo guryaha iyo daaraha iyo tareennada iyo gawaadhida iyo waxaa la dhisayo ka shaqeeya bay u badnaayeen hijrada labaad ee muslimiintu ay meesha ku badatay waa tan dambe ee wadannadii muslimiintana qalaanqalka badani ka dhacay mar labaad baa yurub waxa ku dhacday inay yaraato alyadi alcaamila gacanta shaqaynaysay markaan dagaalmo laynin oo sidii dagaaladii 50 milyan baa kaa hore ku madhaye dagaalamay laynin ee iyagaa go'aansaday inay isdilaan iyagaa go'aansaday inaanay dhalin yurub tiradeedu waxaa laga yaabaa inay ka hooseyso dagaalkii labaad ee dunida intay kaga baxday yurub tiradeedu way sii yaraanaysaa ma sii badato halka dunida kale ay bataan iyagu ninka cadi wuu yaraadaa waayo labada qof isqabaa laba ma dhalaan marka general average la eego wadanka wadan walo yurubaba albania muslima marka laga reebo wadanada yurub oo dhan isku dar meel labada qof isqaba marka wadanka inta rag iyo dumar jooga la isku daraa ay laba dhalaan ma jirto sadaraadeed tiradu way sii yaraanaysaa kuwa dhalanaya kuwa dhimanaya ka badan ama kuwa benshaka gelaya idan xooggii manpowerkii shaqaynaya wuu soo yaraanaya taasi waxay sababtay iyana mar labaad inay qaataan dad u shaqeeya mar labaad dad u shaqeeya inay qaataan labadaa waqti aynu odhan karno hijrada ugu badane waxay gashay qarnigii labaatanaad nuskiisii dambe iyo kan bilowgiisii waana waqtiga ay dumeen caalamulislaami dowlado iyo dad badan oo ka tirsana generally dadkaasi maxay la kulmaan waxay la kulmaan cidhiidhi diineed oo shacaa'irtooda soon iyo salaad iyo wixii la mida cidhiidhi ay ka gasho tamyiiz fi lcamal shaqada oo la haybsooco oo la durkiyo iyo mushkilatu tarbiya wa tacliim schooling systemkii oo system gaalnimo u dhisan oo ilma ka soo baxaa aanu noqonaynin qof muslima indimaaj ku dhacay iyo istilaab alhawiya assimilation iyagoo milmay oo dhaqamadoodii iyo diintoodii iyo afkoodii waayay mucaanaad nafsiya dadka oo nafsiyan u wada buka oo dareen uu ku jiro ah meeluu qariib ku yahay oo laga xoog badan yahay oo la yasayo la cadaadinayo la cidhiidhinayo ama systemka guud ha noqdo ama bulshada ula dhaqan iyo qaabka ula dhaqmayaan ha noqdo uu dareemaya buu ku nool yahay intan dambana waxaa sii kordhay wixii 11 Sebtembar ka dambeeyey 1199 wixii ka dambeeyana waxa kordhay iclaamka reer galbeed wuxuu abuuray oo la yiraahdo islamophobia phobos af turkiga waxa la yiraahdaa waa khawf la shucuuri ghayr mubarrar waa qofku iska cabsanayo aan garanayn sababtu uu cabsanayana marka islaam marka la maqlo waa laga cabsanaya de qof laga cabsanayna cid soo dhawaysanaysa ma jira mambuud baatay dadka waaweyn waxay isweydiinayaan talo goor muqarxaya intaad baska ka degi doonto ma nabad ma kaga degi doontaa idan qof bulshadu soo dhawaynaysa ma tihid
waxaana lagu shaabadeeyey wax allaaliya wixii xumo ah